Dhawaada saaxiibayaal barnaamijkeeni ciyaara halkaad nagala socota waa Cawaalo Official Channel. Qodobada ugu muhiimsan wararkeenina waxaa ka mid ah hantida Sacuudiga imtixaan adag ku qaadanaysa Reds. Kulanka Newcastle iyo Liverpool ayaanu milicsan doonaa. Xogta maanta naxinta weyn ku ah Guardiola. Kulanka Leeds ee Kortega City. Los Blancos oo horyaalka ku guuleysanaysa waxay u baahan yihiin yeeshacda macquulka ah ayaanu eegi doonaa. Heshiiska Chelsea lagu iibsanayay oo si buuxda loo kala calaf qaaday. Lacagta laga bixiyay cidda hesha ayaanu ku eegi doonaa. Paul Marcelo saadaaliye mustaqbalka Cristiano Ronaldo ee Man United dhammaadka xilli ciyaareedkan. Fadlan haddii aad nagu cusubtahay subscribe saar oo door joogto laakiin share ku darsiina faafi barnaamijkeenin. Kusoo dhawaada saaxiibayaal barnaamijkeeni oo faahfaahsan. Newcastle iyo Liverpool iyo kulanka galabta kulanka duhurnimada soo dhacaya labadii barhka ayaanu ku iba furi doonaa barnaamijkeena maanta oo Sabti ah. Liverpool ayaa u tegaysa kooxda Newcastle ideesha ku haysa inay sii wadato tartanka adag ay ugu jirto horyaalka Premier League ee kulamo koobni ka hadhsan yihiin. Reds ayaa imtixaan adag ku soo maraysa gegida James Park iyagoo ka hortagaya Magpies oo si weyn isku bedelay tan iyo markii milkiilayaasha iibsadeen milkiilaha reer Sacuudi iyagoo saxiixay suuqa January si weyn u caawiyeen. Tababare Hawe ayaa wax dhaawacyo cusub sheegan ka hor kulankan taasoo ka dhigay inay keliya ka maqnaan doonaan xidigaha dhaawacyada muddo dheer kala qabay Wilson, Kylian Trippier iyo Ryan Foster. Dhinaciisa tababaraha Liverpool Jurgen Klopp ayaa mar kale waayi doona Roberto Firmino oo dhaawac cagta qaba xilli sidoo kale tan buuxa ugu jiraan Costas iyo Jones oo la xanuun ku dhacay. Labada isbedel ee Klopp sameyn karo shaxdiisa ka hortagaya Villarreal Arbacadii ayaanu kaydka ku celiyay David Luiz iyo sidii kale Henderson oo kusoo bilowday booska Diego Jota Naby Keita. Sidoo kalena Tole Matip ayaa isaguna boos kala bixi kara Ibrahim Konate. Man City xogta naxdinta leh Pep Guardiola uu ka haysta Leeds iyo kulanka ayaanu eegi doonaa. Man City ayaa gegida Ellen Road ku booqanaysa dhigeeda Leeds United iyagoo ka warqabay natiijada kulanka dhex maraya kooxaha Liverpool iyo Newcastle lagu furay ciyaaraha usbuucan. City ayaa haatan hal dhibic ku haysa hogaanka Premier League ayaa caawa ciyaari doonta iyagoo aad og hadii Liverpool ka sare martay oo ay tahay inay mar kale soo qabato. Xogta naxdinta ee Pep Guardiola kooxdiisa Leeds United iyo tababare Jose March ayaa ahaa shantii kulan ee ugu dambeeyay wax guuldarro ay ka soo arag iyagoo haatan booska 60 fadhiya Premier League. mar kale qolka daaweynta Leeds ayaa u muuqday mid mashquul badan waxa dhaawacay qaba ciyaaryahanada kale Adam Verjow, Roberts, Smith, Bamford walow Bamford uu ku dhow yahay inuu tababarka ku soo laabto. Dhinaca Man City ayaa shay ugu jira diyaar ahaanshaha Kyle Walker isagoo loo baday inuu hubaal maqnaan doono halka Stones uu dhaawac caqabka ku helay kulanka Real Madrid Salaasadii. Pep ayaa la filayo isbedel ku sameeyo isagoo isha ku haya kulanka Real Madrid ee Arbacada isagoo bilaabi doona Raheem Sterling, Jack Grealish, Fernandinho, John Cancelo iyo siyaabo kala duwan uga soo bilaaban doona kulanka Real Madrid. Haddaynu inta kaga nimaadno kulamada ugu xasaasisan horyaalka Premier League markaynu eegno dhinaca La Liga, Real Madrid iyo kulanka dhex mari doona Real Madrid iyo Espanyol. Los Blancos oo horyaalka ugu guuleysanaysa maxay u baahan yihiin si ugu guuleystaan qodobka isaga ayaa aynu eegi doonaa. Real Madrid ayaa maanta gegida Santiago Bernabeu kusoo dhaweynaysa dhigeeda Espanyol. Kulanka isha ku haysa inay ku guuleysato horyaalka La Liga. Madrid ayaa u baahan hal dhibic kale si ay ugu dabaaldegto ku guuleysiga horyaalka walow aan koobka maanta gacanta laga saarin. Espanyol ayaa la xaasay inay wareegga hore guuldaro 2-1 soo baday Los Blancos. Tababare Carlo Ancelotti ayaa dhaawacyo badan kooxdiisa haystaan ka hor kulanka daafaca
ayaa halka inta ugu badan ay dhutinayaan, iyadoo David Alaba kasoo kabanaya dhaawac muruqa, halka labada kale daafaca dhexe ee kala Eder Milito iyo Nacho ganaaxi ku maqnaan doonaan. xidiga weerarka Eden Hazard Kovacic ayaa muddo dheer ka maqnaa ayaa la filaya mar kale kasii maqnaan doonaan kadib maqnaanshaha David Alaba. Nacho iyo Milito ayaa fursad isku muujiyay heli doona daafacna Vallejo, waxaana ka garab ciyaari doona daafaca da'yarka ee Madrid ee Mario Gila. Casemiro ayaa kasoo laabtay safka kulankan Madrid uga qaybgeliyay, balse lama hubo haddii Ancelotti shaxda toos ugu soo celin doono, gaar ahaan ka hor kulanka Man City, iyadoo ay la badinaya xidigaha kooxda nasiibay heli doonaan. dhinaca Ismail tababara Moreno ayaa ah mid aad ugu loodan dhaawaca, isagoo waayi doona keliya Edinburgh kaasoo kasoo kabanaya dhaawac jilibka. daanu intaa kaga nimaadno kulamada horyaalada, markaan eegno wararka kale kubadda cagta. heshiiska Chelsea lagu kala iibsanayo si buuxda loo kala calaf qaaday, lacaga la bixiyey cidda hesha ayaanu eegi doonaa. Jamaahirta kooxda Chelsea ayaa ugu dambeyn ka baxay hubanti la-aantii ka taagnay mulkiyadda kooxda, iyagoo qishka ka helaya mulkiilayaasha cusub ee ay yeelanayaan kadib Roman Abramovich waqti dahabi ah soo wada qaateen. labada shaqdi ee mulkiyadda Chelsea islamarkaana sida wadajirka u yeelan doona ayaa kala ah Hassan Chok iyo Todibo, kuwaasoo kala wareegay heshiis dhan 3.5 milyan pound. labadan ganacsade ayaa ku jiray wadahadalada Blues oo ka iibsanaya tan iyo markii xayiraadda la saaray Roma oo lagu eedeeyay inuu gacan saari leeyahay madaxweynaha dalka Ruushka ee weerar ku qaaday Ukraine. West iyo Boyle oo ka mid ahaa saddexda dalab ee dhiib ee tartanka ugu jiray kooxda, waxaana ugu dambeyn ku guuleystay dalabkooda, si uu u sheegay saxaafiga Nicola. taageerayaasha ayaa ka degi doona culays badan oo dhinaca kooxda ka haystay. Chelsea ayaa laga xayiray meelo badan oo ay ka mid yihiin xataa iibinta tiirka kooxda. hore qoyska Richards ayaa ahaa kuwa u tartamay inay iibsadaan kooxda reer London, balse jamaahirta iyo mudaharaad kaga horjeesta ayaa sababay inay loolanka isaga baxaan. wararka baraha bulshada iyo taageerayaasha Chelsea ayaa hore xogta badan u haynin ayaa in Todibo uu yahay shaqsiga inta ugu badan taageerayaashu doonayeen, iyagoo arkaa midka danta ugu badan ee ugu jirta ee kooxda, sidoo kalena la jecel muhiimadiisana dhaqaale ahaan. Paul Morse oo saadaaliyay mustaqbalka Cristiano Ronaldo ee Man United dhammaadka xilli ciyaareedkan. qodobkaas ayaa ugu dambeyn doona barnaamijkeena maanta oo Sabti ah. xilligii hore ee Arsenal, Paul Morse ayaa la filayaa inuu Erik ten Hag iska iibiyo Cristiano markuu yimaado Manchester United dhammaadka xilli ciyaareedkan. Red Devils ayaa la filayaa in tababarada cusub ee soo socda inuu isbedel weyn ku sameeyo kooxda, dib u dhiska sameeya kooxda, taasoo shaki ku abuurtay mustaqbalka Ronaldo. iyadoo Man United ku jirto kaalinta lixaad una badan tahay inuu seegto Champions League xilli ciyaareedka dambe, waxaa laga yaabaa inuu xilli ciyaareedka noqdo midkii ugu dambeeyay Ronaldo Premier League. Morrison ayaa arrintaas ka hadlaya yidhi, waxaa laga yaabaa inuu sanadkan noqon doono midkii ugu dambeeyay ee Cristiano Ronaldo Premier League, waxaanu doonaya inuu ka ciyaaro Champions League oo uu ka ciyaaro xirfadiisa ciyaareed oo dhan. waan la yaabi doonaa haddii Erik ten Hag kooxda ku sii haysto. wuxuu doonaya inuu dib u dhiska kooxda Ronaldo haatan oo 7 sano jir ah. Paul Merson oo falanqeeya ahna xilligii hore ee kooxda Arsenal ayaa sheegay in Erik ten Hag uu doonayo inuu dib u dhiska kooxda ka qaybgeliyo xilliga Man United ee Ronaldo ee 37 jirka, walow Ronaldo aynay suurtagal siba u ahayn inuu Ronaldo kooxan Champions League aan ciyaareyn inuu sii joogo. horena Cristiano u sheegay inuu haddii Man United usoo bixido Champions League aanu sii joogi doonin. barnaamijkeeni ciyaaruhu intaas ayuu kaga fadlan haddaad nagu cusubtahay subscribe saar, haddii horena joogtana laga shir ku dar, siina faafi barnaamijkeenan
si u gaadho asxaabta jecel kubadda cagta. Mahadsanidin.